guud ahaanba dunida guudkeeda meel kasta oo ay Soomaali joogto waxa laga xusay maalinta xorriyadda iyo israaci gobolada waqooyi iyo kuwa koonfureed maalintii gobonimada iyo qaadashada dawladnimo oo haatan laga joogo 51 sano guud ahaanba dunida aad baa looga dabaaldegay sanadkan oo waxaad moodaa in ay sanadkani ahayd sanadkii ugu xasuusta badnaa tan iyo burburkii Soomaaliya haddaba waddanka Finland waxa ka dhacay dabaaldeg ballaaran oo loo sameeyay iyo koob kubadda cagta ah oo ay ku tartamayeen kooxo gaaraya 10 kooxood oo ay soo qaban qaabiyeen ururada kala ah Suomi Somali Liito jariyada Soomaaliyeed ee Finland Kanava RU dhalinyarada ah midnimo Semo Somali Verkosta Saten Varia mas'uuliyiintii goobta ka hadashay oo ay ka mid ahaayeen danjirayaasha dalalka Ciraaq iyo Turkiga iyo xildhibaan ka tirsan waddankan Finland iyo madaxweynaha maamul goboleedka Iran and Libyan State waxay hadaladoodii ahaayeen sidan la ciidayo oo loo ciidayo maalintii qaranka Soomaaliyeed oo ah markii 11aad ma wax aad u qiimo badan weeye qarannimada rag badan baa u soo dadaalay rag badan baa u soo dagaalamay marka in la xuso maanta waa maalin aad u qiimo badan weeye waxaana loo baahan yahay qof walba Soomaali ah inuu maanta kale xuso caruurtiisa baro waxay wadaniyada tahay waxaan doonayaa halkan inaan ka soo gudbiyo salaan diiran oo aan ka wado madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed mudane Sheekh Shariif Prime Minister kiisa Abdiwali waxaanu idin leenahay maalin wanaagsan maalin lagu ciido maanta ha noqoto Soomaaliya dawladdaasay ahaan jirtay oo xoog gale oo laga baqo jiray libaaxyada Afrika sagaalkii 77 waxaan ku dhawaanay magaalada Addis Ababa haddeer annaga waxaan victim u nahay And now today we are the victims of that. Tämä on kunnia olla täällä Brahen kentällä tällaisena Somalian itsenäisyyspäivänä ja musta oli hienoa nähdä ensinnäkin jalkapalloa tässä eduskuntaviikon päätteeksi tuolla tällä viikolla. Eduskunta vihdoin pääsi kesälomalle, joten terveisiä näin kansanedustajan ominaisuudessa myöskin eduskunnalta teille ja parhaat terveiset Somalian itsenäisyyspäivänä. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Amma ba'da waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan xafladii kowda Luulyo aan idinla qaybsado reer Finland dadaatiin dhalinyaradiinan iyo Mr. Becca Harvest oo adeynina idinka istaqaanin oo si fiican noogu soo dhaweyseen aad iyo aad baan markuu ugu horeyso mahad ballaaran idinku celinaya sida waddankan aad noogu soo dhaweyseen anigu cayaartay duqowdaan ahay cayaartay waxaan ahay hore u soo fariisatay meesha rag odayaala fadhiya Professorka Axmed nin Cabdullaahi Xuseen la yiraahdo waa iga weynaayeen laakiin marmaray cayaartaan isku fiirin jirnay waxaa jiray nin oo haddaa waxaan arkaya gool fiican oo yarka number 7 ka meeshan uu ka dhaliyey maraan damco inaan soo istaago aan ka dhiciyo ragga kale marka marka waxaa wax lagu farxaa in maanta ay sanado badan laftirkay dib iiga dhaceen oo aan ismoodayba maaragtay kuwiinaan garoonka ku jira marka runtii waxaa wax lagu farxaa muddo 40 sano 50 sano ka horreysay marka sidiinoo kale garoonada intana la keena nala cayaarsiin jiray maanta in idinkoo oo waddankii aadan joogin nabadgelyo xumaa uga soo tagteen awgeed inaad maanta ku naaloonaysaan waddanka Finland garoomo qurux badan gabdhaheenna iyo wiilasheenna generationna aad maaragtay u firfircoon maanta inaan waddan kale horta aan isugu imaano waa wax maaragtay cajiib ah qurux badan والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم والله ليال طبعا واتصلت قيمها له سلوك من حملتها قيمها بدل شكوى هوينك Soomaaliyeed iyo caruurta Soomaaliyeed
iyo dhalinyarada Soomaaliyeed iyo aabayaasha Soomaaliyeed waxaan marka ugu horreysay ku salaaminaa salaamta islaamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كديب فرحات وين بيناتنا هاي إن معلم قيمة بضع وأمر الصوماليين ما تسوي الدكتور كوين أما أنت هلك قوة قادنا حرمتنا المرتب يسكرون النوع عصو كلاء وأما أنت ياسا يوم إن صوماليا يأتوك جيسيسة كده دوامبا لو قد بانتك يا معلمتها معلم كاسوها معلم تيبوه ريسي الآن وقارني حرية دي ذلك الصوماليا كنت يكوسر كهر waxaan ogahay waqtiga aad xiriir ku yahay aadna loo daalay yahay daqiiqado fara badan aan loogu talagelin in la hadlo waa xafladana khudbado fara badan kuma habboona taariikhdana raggii u joogay ayaa jooga aabbayaal iyo adeeryaal ayaa wada jooga oo ka sheekayn doona laakiin waxaan ogsoonahay in maalintaas ay qiimo gooniya noo leedahay haddii aan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed haddii anagoo carruurteennana ay qiimo gooniya u sii samayn doonto waxaan rajaynayaa kulankiisa xiga inkastoo xarunta ay hadda cusub tahay sharaf gooniya ay u tahay iyadoo cusub oo weli deegaankeedii socdo in haddana kulan noocan oo kale ummadii Soomaaliyeed jaaliyadda Soomaaliyeed waddanka isugu wada timaado sharaf gooniya ayaan idinkaga mahad celinaynaa waadana sharafteen baan ilaahay haydin sharfo xaflad wanaagsan baan idin rajaynaynaa sanadkiisa kalena waxaan rajaynaynaa iyadoo dalkiina uu noo wada hagaagay dowladdiina ay noo adkaatay ummadii Soomaaliyeedna ay isu wada hilowdeen ay isu soo laabatay nabad iyo khayr iyo barwaaqo goobta ku habboon oo naansan inta badan kasoo geli doonaan insha Allah wadada ka sameeyay hadda ka dhigo ku dheeran maayo si laga dhawaajiyay waqtigu waa kooban yahay waxaa farxad ah in sanadka markii ugu horreysay saadka aragtaan loogooyinkaas in sidoo urur iyo ama dhowr urur oo Soomaaliyeed oo ka mid yahay ururka midnimada Soomaaliyeed Soomaaliyeed qayb ka yahay soo qaadiyay sanadkan xafladan munaasabadan ku luuliyo ujeedada ka dambeysana ay ahayd bal in laga baxo faraarka in la yiraahdo halkan toonka ku shaqeeyo Manta ومال وين مانتا 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 مدحين بنان مانتا 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 مدحين بنان مانتا 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 ومال وين مانتا 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 عليك مال مانتا 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 ومال وين مانتا maxamed muuse universal TV waqooyiga Yurub Finland